habeen wanaagsan daawadayaal waaniga maxamed cabdi xaraar oo idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabe dawladda Mareykanka ayaa lagu wadaa in ay Eritrea ka saarto liiska dalalka loo aqoonsaday inaanay gacan buuxda ka geysan la dagaalanka looga soo horjeedo argagixisada. Dawladda Eritrea ayaa soo dhaweysay tallaabadaasi iyaga oo ku sheegay wax soo daaha inay ka wanaagsan yihiin wax aanan lahayn. Qalib Baarud ayaa ka warramaya. bishii 11 ee sanadkii 2018 ayay golaha amniga ee qaramada midoobay si wada jir ah ugu codeeyeen in Eritrea cunaqabataynta laga qaado. Waxay guul weyn u ahayd Eritrea oo ilaa 2009kii ka dagaalamaysay xayiraadda hubka iyo cunaqabatayntii saarnayd. Golaha amniga ayaa sheegay inaysan jirin wax caddayn ah oo loo hayo eedeymaha Eritrea. dadka Eritrea dib u go'an maayaan xumaana ku reebi mayso laakiin waxaanu maanka ku haynaa taariikhdii 20 sano ahayd ee aanu ku soo dadaalaynay abuuridda nabad iyo horumar u qalma wixii aanu u hornay 70kii sano ee la soo dhaafay si loo dhiso wadan nabad ah oo isku kalsoon. geedi socodkani waxa uu soo bilaabmay 4 sano ka hor kadib markii ay Eritrea iyo Ethiopia heshiis ku soo afmeereen murandulaadkii xuduudaha. waxaa xayiraad saarnaa hantida dawladdu dibadda ku leedahay qaybo ka mida mas'uuliyiinta iyo ganacsatada dalka. dhowaan ayaa Maraykanku Eritrea ka saaray liiska dalalka ku eedaysan inaysan ka qayb gelin la dagaalanka argagixisada. bishii May 2017 wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa xaqiijisay in Eritrea ay taageersan tahay la dagaalanka argagixisada. go'aankooda waxay ku saleeyeen warkii ay qaramada midoobay ku sheegtay in aan Eritrea taageerin ururada argagixisada qaybna ay ka tahay xasilinta geeska Afrika. wasaaradda warfaafinta ee Eritrea ayaa sheegtay in calaamadda saarani ay markii horeba ahayd mid khalada laakiin ay hadda soo dhaweynayaan go'aanka lagaga qaaday cunaqabataynta. Eritrea ayaa ka cabanaysay in cunaqabatayntu dhaqaalaheeda wax u dhintay. sannadihii dagaalka ayaa cadaadis sii saaray beeralayda iyo ganacsatada yaryar. Eritrea waxay hadda dalbanaysaa magdhow. hase yeeshee go'aanka Maraykanka ayaa sii xoojinaya garabkooda. nabadgelyada iyo heshiiska dariska ayaa waa cusub u dhaliyay dalkan.